waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu faca weyn uguna magaca dheer guud ahaan geeyiga Soomaalida in ka badan 10 sano oo aanan waqti badan ku qaadanna waxa si weyn u cajab galiyay isbedelada dhanka horumarka ah ee sanadihii ugu dambeeyay ay sameeysay magaalada Burco qaar ka mid ah warshadaha ugu waaweyn ee ku yaala Geeska Afrika kuwaas oo soo saara noocyada kala duwan ee tayda saabuunta iyo shaambooyada ayaa kuwa xaruntooda u weyn ay ku taalo magaalada Burco waxaana alaabada ka soo baxa warshadani loo iibgeeyaa wadamada Ethiopia, Djibouti iyo deegaanada Soomaalida guud ahaan halkan joognaana waa laabka warshada Ilays oo ah runtii warshad aad u weyn waxana qaybtan ay tahay qaybta ka shaqeysa inay eegto quality-ga alaabta imanaya warshada ee laga sameeyo tayda saabuuraha iyo shaambooyada kala duwan iyo sidoo kale waxa weeye alaabta ka baxaysa labadaba marka tan runtii waxa ku tusaysaa sida loo ilaalinayo quality-ga alaabta meesha soo galaysa chemicalska sayladda xoolaha ugu weyn Geeska Afrika ayaa sidoo kale mid ku taala magaalada Burco waxana qiyaastii laga dhoofiyaa sanad walba malaayiin xoolaha kala duwan sida geela iyo ariga waxana si weyn ku soo jiidanaya qaabka uu dhaco iibka xoolaha oo mid ka duwan dhammaanba iibka caadiga qaabka wax loo iibsanaya waa ka duwan dhammaanba qaabka hore warki jirteen waxa weeye iibku marka uu dhacayo go ayaa la saaraya labada gamcood si hoose ayaana wax loo iibsanayaa sida haatan wada arkaysaan kadib ayaa iibku dhici doonaa sida ma ay nidaamkan muxuu ka duwan nidaamada waa nidaamka xoolaha lagu gato waxa la doonayaa iibku inaanu fashilmin oo qofka halka maraya hadhow ariga ka baayici lahaa aanu ogaan waxaad qofkan marka imka anigu horaad iigu sheegtay nidaamkan sida wax loo iibinayo taasi waa sagaashan hay kaasna waa 77 hay kaas waa boqol marka taa fartaa ku dhigto boqol baa laga 77 kina muxuu noqonayaa waa taayata ما شاء الله أصحابته وإيبكا يصير حولها اللي يبصدوا رنتي كدوم بدأ مامبا يبقى عادي جاين هروس وارجني ترى نتيم كوا حيش يعني تهين لقرنا أيو حكت إيبكا حاجة هذا ما حصلت إيبكا مركود عنا تبتاع صالرني ما شاء الله dhanka kale magaalada Burco ayaa la talaabsanaysa tiknoolajiyada casriga ee dunida waxaana inta joogto magaalada aanad u baahnayn inaad tagto bangi si aad lacag uga soo baxdo mashiinada lacagtuna waxay yihiin kuwa diyaar ah 24 saacadoodba guud ahaan dunida waxa si weyn u koraya nidaamka tamarta laga dhaliyo ee cadceedda kaasi oo loo bedelayo koronto waxaana shirkadda korontada ee magaalada Burco ay tahay mid ku dadaalaysa horumarinta nidaamka solarka ee laga dhalanayo dabka si deegaanka magaaladu u noqdo mid wanaagsan tanana waxay qayb ka noqonaysaa badbaadinta hawadeena sidoo kale dhanka tiknoolajiyada magaalada Burco waa mid aad iyo aad u horumaraysa waxana internetka adeega 5G aan ku dhex isticmaalaya isla gudaha magaalada Burco ayuubaan waxa maray dalal fara badan iyo magaalooyin fara badan oo xitaa aan ka heli waayo adeega 5G balse magaalada Burco runtii waxaan ka helay adeega internetka 5G taasina waxa ku cadeynaysaa sida magaaladu ay diyaar ugu tahay inay ugu horumarto dhanka tiknoolajiyada tababaraha caalamiga ee dhanka orodka jaamac Karaaciin ayaa ka mid ah dadyowga magaalada ka hirgeliyay dhismo hotel iyo mall si ay qayb uga noqoto horumarka magaalada dhanka kale qurba joogta magaalada Burco ayaa iyaguna dhankooda kuwa muujinaya dadaalo dheeraad ah oo magaalada horumar lagu gaarsiin karo dalka Mareykanka ku noolayd waa mid ka mid ah wadamada dunida ugu wanaagsan hadda Burco ku soo noqotay maqaaxi wanaagsan bad ka sameeyay aniga laftigeedu kafeegeeda aan jecelahay way kab leedahay waxa kugu kalifeen ku soo noqotay magaalada Burco magacaygu waa Milgad Saciid Cali ka soo guurtay Mareykanka muddo ka badan 22 sano ku noolayd 2020 xilligii Covid-ka ayaan ka soo guuray bishii October magaalada markaan dhawrba ka eegay fikirka waxa igu soo dhashay inaan meel cafeteria ah oo maaragtay dhalinyarada iyo waayeelka iyo waxgaradka ay fariistaan oo maaragtay rag iyo dumarba ay fariisan karaan ku shaahi karaan ku sheekaysan karaan wax ku akhrisan karaan inaan wadanka ku soo kordhiyo waxaad ku noolayd dalka Jarmalka waxaad ka mid ahay dhaqaatiirta ugu wanaagsan ee dalkaasi joogta in ka badan 30 sanad ku noolayd maxay tahay sababta kugu kalifteen adiguna ka soo noqoto dalka Jarmalka oo nolol fiican aad ku haysatay kuna soo noqoto magaalada Burco wallahi de horta waaniga soo in kasta oo aynu dadkeena Yurub indoora ku noolaa waxaad moodaa infrastructure aynu raadinayno oo meel fiican oo la fadhiisto kafiyo fiican oo la fadhiisto dariiqyo laamiyo oo la maro dukaano fiican oo wax laga gato wixii aynu xagga ku baranay oo cuntooyinka ah in laga helo maanta waxa soo dhan wadankii waa jiraan
marka sababaynu xaggaaba u joogno maba jirto. adeegyada tiknoolajiyadda ee iibsiga alaabada noocyadooda kala duwan ayaa ah kuwa ay si weyn ula jaanqaaday magaaladu. tanana waxay ku tusaysaa isbeddelka la taaban karo ee magaaladu ay samaynaysay sanadihii u dambeeyey. waxaana adeegyadani ay yihiin kuwa la jaanqaadaya tiknoolajiyadda casriga ee guud ahaan laga isticmaalo dunida. sidoo kalena waxay fududeeyeen nolosha bulshada ku nool magaalada Burco iyo guud ahaan gobolka Togdheer. kaalmaha shidaalka ee ku yaala magaalada Burco ayaa iyaguna kuwa la mid noqonaya kuwa dunida. daawade halkani waa magaalada Burco waxaana waxa muuqaalkani mid aan idinku tusayay waxa ku soo kordhay magaalada Burco sanadihii u dambeeyay. ku xidhna waa iibshow lana soco muuqaal cusub sidoo kale filo dhawaan muuqaal casri ah oo kuwan la mid ah guud ahaan deegaanada iyo magaalooyinka kala duwan ee Soomaalida.